qof wax yaqaano oo secularka wax badan ka yaqaano PhD haysta haddana aad moodo diinta inay gees ka saaran tahay ama diintiisa uusan aad iyo aad u fahansanin. Why? Because wuxuu u qabaa in diintu aysan ahayn mid successka iyo guusha lagu gaari karo. mana jirto guul aan diin ahayn. aad baad ugu mahadsan tahay daawashada message-kan aad daawatay bilowgiisa. waxaan kaa codsanayaa inaad dhammaystirato haddii uu adiga ku caawiyana aad gaarsiiso dadka kale siduu u caawiyo. subscribe our channel-keena si aan u noqono ummad baraarugsan una baraarujisa bulshadeeda. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله اليوم السلامي ملك ادون كجوكتر ولكن فرحان ما لا سوتا دولانka maskaxda oo ka qatarsan duulaamada kale. culimada inta badan waxay aad iyo aad uga hadlaan waliba kuwa Ilaahay xigmada siiyay muhiimada ay leedahay duulaanka qofku laga rabo inuu fahmo inuu ka digtoonaado. waxaan shalay dhageysanayay Nucmaan Cali Qaan barasi qisadan aan kaaga sheekeeyo. ninaan saaxiibanahay oo same course wada qaadano leadership baa wuxuu iga sheekeeyay oo Egypt degan oo Arab ah قصة آدي آد عجيبة أو دولانا ذا مسكحة كامدة أو المهنة ينولشنا آدو تابانيس ودولان آدي آدو أدق أو آدو باهنتهاي مرول بإناد أدوغو سويدي سو مركاد يريد أما دقن كاغا ملاذا هاي دولانا ذا نوع عاسو كلاء وحيابها أي ريبين أما مهلك أما توهنك أي ريبين مسكحة ذا مكوشرا وحال يري فاوندرسكا بالاغا شيكي داد يوغا وح فاوند غريي أما نولشا دادك وحكسو كردري dadka aqligooda isticmaalay ee wax soo saaray waxa laga sheekeeyay light-ka iyo ninkii fan gareeyay waxa laga sheekeeyay gravity-ga iyo ninkii fan gareeyay waxa laga sheekeeyay airlines-ka iyo labadii walaalaha oo fan gareeyay markaas waxa lagu daray nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ilma yar oo iskuul loo dhigaya nabi maxamedna wuxuu ahaa sallallahu alayhi wasallam ayuu nabi maxamed ma dhahayn maxamedna wuxuu ahaa the founder of the Islamic religion. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam was not the founder. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam was selected. Ilaahay qof uu doortay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ummadda uu ka doortay wuxuuna ahaa message kan inuu ummadda soo gaarsiiyo laakiin ma ahayn founder ideadiisa iyo aqligiisa la yimid laakiin duulaanka maskaxda ilmaha iskuulada lagu baro in badan oo kamida waxa kamida inuu qofku asagoon isfahansanayn uu ogaado ama loo geliyo arintaas wax la mid. And that's why aad u arkaysaa qof wax yaqaano oo secularka wax badan ka yaqaano PhD haysta haddana aad moodo diinta inay gees ka saaran tahay ama diintiisa uusan aad iyo aad u fahansanin. Why? Because wuxuu u qabaa in diintu aysan ahayn mid successka iyo guusha lagu gaari karo. mana jirto guul aan diin ahayn. xataa dadka guuleystay ama dadka successful noqday waxyaabaha ay ka sheekeeyaan ama ay isticmaalaan waa xadiisyada Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam oo si kale ay u soo daliilsadaan. laba qisaan kaga sheekeena waxaan ka drive gareeyay more than 20 years 2 decades in ka badan ba waxaan ku jiraa inaan barto success principles ama public speaking ama leadership ama people dealing wax la yiraahdo in my life. More than 2 decades in my life. I remember I drive from Minneapolis waxaan u soconay magaalo la yiraahdo saaru maleynay Arlington, Texas. waxaan laga hadlay success principle. ninba stage soo koray waxa magaciisa la oran jiray Dave wuxuu ka hadlay wuxuu yiri nin reebaadiye ah baa wuxuu yiri ratigaaga dabro ilaahina tala saaro. He did not recognize meesha ama qisadaas qofka iskale wuxuu rabaa inuu principles ka isticmaalo laakiin ma rabo inuu reference gareeyo inuu nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam leeyahay. dad badan oo dadka kamida they still use wayna isticmaalaan mana ka celin kartid mana u diidi kartid. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala baa waxa uu leeyahay nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إلهي رحمة وأصدر أمد نبوة أما قفك هاو استعماله سداس وكلا أما هاو استعماله سكلا وحلقها أمرك إنها تفهم سنتهي سكسيسك نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أما جوشو قفك أما بريسة كرهت سدو أما إلهي سبحانه وتعالى بريسك ينولش أدونك يتشنده بها كرهت سدو وحاجر نيل هذا باب بروكتا أو أن عنكو a positive mindset dhintay 2022 lagu yaqaano buugiisa la yiraahdo you are born to be rich because qof kasto anaga naga mid wuxuu raadinayaa to be rich. waxaan dhageysanay maalin dhaweyto arin uu ka hadlaayay oo uu yiraahdo waan raba laftigaaga inaad dhageysato
xadiis nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam oo uu ku caan yahay Bob Proctor ama ha ahaado xadiiska qofku wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka maaragtay malaystuu helayaa ama ha ahaado qofku inuu positiveka iyo negativeka oo ahaa xadiiska nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam cajab al-amru al-mu'min qofka mu'minka arrinkiisu waa wax la yaabo hadday taabato masaa'ib ama dhibaato taabatana wuxuu yahay qof positive oo Allah subhanahu wa ta'ala ku qanacsan hadday xumaan taabatana in qof ilaahay subhanahu wa ta'ala ku qanacsan maxay leeyahay wax kasta ama xumaan ama wanaaga waxa ku jira qofkaas wax Allah ugu talagalay inuu ka barto oo uu ku baraaro. You can think negative or you can think positive, but you can't think both at the same time. You're only going to think one way at one time. And we have to train our mind to think or look for the positive or the good in things. There's good in everything. There's no such thing as no good. Car broke down on the way over to the station. There's something good about it. There's something good about it. Now, you may have to look to find out what it is. Okay. Yeah. But there's something good in everything. And that's waxa dadka reach ka dhigayna dhaqaale sameeyay inay ogaadaan there is a night, there is a day, there is a maaragtay iftiin, there is a mugdi, there is a xumaan, there is a wanaag, there is a kor, and is a low ilaahay subxaanahu wa tacaala leh marka waxa laga rabaa inaad fahansan tahay success ma jiro oo aan diinahay nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallamna waa raxmo alla dadka dhan u soo diray haddaad nebiga rabto sallallahu alayhi wasallam inaad jeclaato noqo qof akhlaaqdiisu ay ka muuqato nad qof qalafsanaanta inuu nebiga ilaaliyo ama nebiga sallallahu alayhi wasallam inuu sheegto laakiin dabcigiisa iyo dabiicidiisa aan lahayn ha ka dhigin nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam inuu daarood iyo hawiye iyo had u protect garanayso waxaad ogaataa nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam Allah doortay waana raxmad ummadda oo dhan loo soo diray xataa hadda aragto qof kale oo isticmaalaya principlekiisii wuxuu ka mid yahay inuu helay raxmadii Allah subhanahu wa ta'ala nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam let me finish it for you in quraanka waa ilaahay subhanahu wa ta'ala raxmadu leeyahay ummadda ama dadko dhan loo soo dhigay ma taqaana barashadiisa Allah wuxuu ka bilaabay subhanahu wa ta'ala magacyadan magac uu nabi Allah subhanahu wa ta'ala ka bilaabay markuu nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam barashadiisa iyo barida uu ka hadlay ar-rahmanu 'allama al-quran Allah ar-rahmanka oo raxmada iska leh nabi maxamed maxaa leeyahay waa raxmad Allah subhanahu wa ta'ala ilaahay raxmadiisa adduunkan taalo adduunka uu keenay cid kasta isticmaali karta waxayna u isticmaali kartaa sida ayagu ay rabaan ama ay u maleeyaan inay wax ka heli karaan ani adiga waxa la rabaa inaan u isticmaalno anagoo adduunkana kaga helayna wanaag aakhirana kaga rajeynayna Allah subhanahu wa ta'ala inuu jannada nageeyo waxaan hadii Allah rabbi raali ka dhiga ka hadli doonaa hadii Allah ii sahlo dad badan oo muslima waxaan aaminsanahay dadka muslimka inay hurdaan anagoo haysana successka nabiga maxamed sallallahu alayhi wasallam iyo secretka lagu guuleystay adduunka aakhiro inay hurdo maxaa hurdada keenay insha Allah ta'ala next week waxaan ka hadli doonaa waxyaabaha aan ku mashquulsanahay oo ah xifdin iyo xigasho in dadku wax xifdiyaan waxna soo xigtaan laakiin waxay xifdiyeen ama soo xigteen aysan ku xulanin nolosha maanta ay joogaan inay uga baxaan dhibaatada haysata iyo dadka xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam soo daliilsanaya sida ay u isticmaalaan ayagoo laga yaabo inay maanta ama adduunka kaliya uga helaan bariis laakiin ani adiga aan u baahanahay inaan adduunkana aan uga noolaano raxmadda Allah subhanahu wa ta'ala aakhirana aan rajayno Allah raxmadiisa